tababarkan oo linku hadalay xuquuqda awlaadiyo xuquuqul insaanka dawlad goboleedka koonfur galbeed ee Soomaaliya iyo waliba qaban qaawiday wasaaradda haweenka ee dawlad goboleedka koonfur galbeed ee Soomaaliya oo kale waliba qayb ku hay xubno kale ku dareeray wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqul insaanka dawladda federaalka ee Soomaaliya walibana ku qayb galay tababarkaas ay qaybo shalgadisan ee bulshada ka dhaqan magaalada Baydhabo koorayna waliba meelasay ku hadalay Roodi Yuusuf Xaashi oo markaasay iyo ku dareertay wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqul insaanka dawladda federaalka ee Soomaaliya walibana hadalaya ku mid hayay magacayga waa Roodi Yuusuf Xaashi waxaan ka socdaa wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqda aadanaha in qaybta child protection in waxaan ku suganahay magaalada madaxda maamulka koonfur galbeed ee Baydhabo waxa uu socdaalkeenu uu ku lug lahaa in aan sameeyno tababar amba aqoon isweydaarsi in looga hadlaayo in CRC amba heshiiska caalamiga xuquuqda caruurta iyo halka uu marayo in ka heer federaal iyo ka heer maamul goboleedba in ujeedkeena guud saas oo ahaa in aad u mahadsan tahay soo dhaweynta iyo shaqada wanaagsan ayna la qabatay in wasiirada heer maamul goboleed ee koonfur galbeed Soomaaliya in Marwo Nadiifo soo dhaweynta iyo barnaamijka ayna la qaban qaabisay in ujeedkeena guudna saas oo ahaa in aad u mahadsantiin mintina waliba meelisay ku hadalay wasiirada haweenka ee dawlad goboleedka koonfur galbeed ee Soomaaliya Nafisa Xaaji Armi walibana iyo hadaladii ku mid hayay mar walba in liimbaahan in la horumariyo xuquuqda awlaadi iyo leeyin waliba barnaamij halbeer socdo kaasoo guud ahaan lagu ka hadalo xuquuqda ciyaalka iyo kaleeyin dawladda ama qof walba oo daneeyo daryeelka ciyaalka marka insha Allah waliba neen roogay martada neen ku socota wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqul insaanka dawladda federaalka Soomaaliyeed waliba tiina dadkii sida qaaska ee lahaan xulodii mase lanka azuumi kulankan iyo hadba ilaa ay warbixino inta la eg iyo ka hayaan arimaha ciyaalka inaysan ninku nacam liska lagu wada hadala bacdeena la ku saar waxyaabaha oo dhabta ee xaqiiqada ee deegaanka ka jira guud ahaan koonfur galbeed intiisan ku arameedan gaar ahaan degmada Baydhabo oo nasiibkan weeldatay barnaamijkan intuu ku qabano salwad ogsoonyinta badan heshiiska xuquuqda ciyaalka xeer caalami ah markii la fiiriyo waliba la saxiixay 1989 marka bulshooyinta caalamka ku wada nool waliba jira heshiisyo badan oo la galo kaasoo oo bahada fadhiya xuquuqda ciyaalka heshiiska human rights kulanka soo xuquuqda dumarka waxyaabo badan heshiisyo badan ee caalamka ka jira marka Soomaali burburkii ku dib sanadahan dambe waliba ka jirtay riidhaan kabasho oo intuuna la jaan qaadna bulshada caalamka hadba meeli uu ku galo kornanti ku gala dawladda Soomaaliyeed marka heshiiskaas waliba qayb ku nagatay dawladda Soomaaliya 2015 heshiiskaas oo xuquuqda ciyaalka inta la ilaali mas'uuliyadda oo weyn la isku saara la daryeela waxyaabaha asaasiyaadka oo nogan baahan in la siiyo marka intaas kadib waliba lan baahan heshiiska madil saxiix kadib in la dhaadhici ilaa heer maamul goboleed heer degmo heer tuulanti la deersi nacam micna ma sameeyay inay warqad la qoro just wala sakeelini la micna ma sameeynas laakiin inay la ka falceli nacam sidii dhakanyin masalan ku heli inay lanka dhagam ya muhiim ah marka waliba la ku gudu jira dardar gelintii heshiiskaas ay sidii san shaqeey lahaay la ku gudu jira dawladda dhexe bilowgii markii wasaaraddan la wareegay waliba jirtay hal barnaamij oo isla xuquuqda ciyaalka lan ka hadala oo isla qabanay kan waa kulankii la maado sidana rajeeyo oo isla sameeyana marka waliba la siin ku faday in waxyaabo badan oo dhabtay oo xaqiiqada ka jirta deegaanka in la ku waram sun wada ogsoogno deegaanka runtii daryeelka ciyaalka eedan ka liidada walidiintu waliba argaasan wali mashquul iyo waxyaabo kale iska saarayna cunada cunuga tusaale ahaan inuu nolol maalmeedka unugantiyo ku fikiraan laakiin waxyaabaha muhiimka ah oo asaasiga ah oo waajibkeena waliba unuga walbarashadiis daryeel shay hooy caafimaad nadaafadiisa everything is waxyaabaha asaasiga ah cunuga mustaqbal shay hadhow cunug walba waa bi'adiisa ka barbaaray hadhowna muuqaal shay lahaade
haddii uu ka barbaari biyo oo nadaafadan lahayn daryeelan lahayn wallahan barna lahan waxyaabo badan lahan ka sheegna cunugaas hadhow markii wiinada waliba lahaaday muuqaalkii mise qaabkiisa ka barbaari marka waliba baahanna awlaad Soomaaliyeed gaar ahaan awlaad koonfur galbeed ku nool intii oo helan xuquuqaad lamid ilmaha caalamka ku nool mise iyaalka Soomaaliyeed intii kale ku nool koonfur galbeed waliba ogsognaa hadiisan kaamamka iyo dadka xaafado ku nool geed isku seemay isku mido ini onog la dhalashaleediye laga wali argaas intaas awlaadee qaba kaliya inuu iska faanaw laakiinse waajibkii ilaahay saari oo daryeelkii iyo xuquuqaadkii asaasiga ah unugu baahanaa in la siiyaan awlaad badan oo akhlaaqadan lahayn jidka maraya onog badan dadaayo dad dhibow dad dhacaw qofka meenaa ma diwiinada hadhow tuug iyo something qof oo dad dilay liyaabana laakiin walaa ilaha ka barbaari walaa ilaha onog la ka koriyo واجبك أو كسرنا والد كاس أو هاي ونكشي بر مستقبل فيل أنتي وسن ديار أنتي ومتوك قابض دبعت هذا الشعب كديجان كنتي سكو قابض وحيابها صوب والد كجيجان الديار نبريه ونقاس ما يلي يابو ما يوالي واجبك كسرنا والد كي هجفي ما حجودنا واجب شيء مركا وليبا مهم ونأكل دنقدانا كحكومة دهان waliba fadana insha Allah ilaahay xeer meel kafayl meel dhaxantuna deersina waliba ila roogaha dadkii gacmo ka hay awlaad noocaas ama baahiyaadka gaarka qaba sida SSYO iyo sido yani ila roogan kuwa badan oo magaasho danahan marka waliba fadana waxyaabaha basic oo isin sida maalin lahaan la kulmaasan in la ku hadala dan qoraal la ku saara dawladda dhaxan waliba ku codsadaan inay oo hadba inti karaansho ee walaayo noo ka garab sii koraan awlaad ka dhaqan deegaanada koonfur galbeed oo koreeyto wal barasho iyo hooyn caafimaad iyo waxyaabaha asaasiga oo qof walba noqshay intii ka noolaada oo soo fada intii aan helna dadka oo baahiyaadka gaarka qaba dhaqan deegaanada yasiin ku codsadaan insha Allah maadaama waqti badan hore ilahan aami waqti dheer masiin ku qaadaw hadhawaada ka faraxsanna mar walba inaysan oo kala qayb galan barnaamijyada furiyaasha wasaaradda haweenka horumarinta xuquuqul insaanka maamulka koonfur galbeed waliba siin ku rajeeyay inaysan garboogana suruntaan soo guud ahaan waajibaadka noo saaran dadka keegaana reer koonfur galbeed sidoo inka adeega lahayn inaysan garab siidaan gaar ahaan dhalinyarta la hadalay hooyooyinka waqti shoogaadeen iyona garab shoon baahna waa mahadsantiin hadhawaada assalaamu calaykum maxamed cabdiraxiin maxamed Xaquuqda Kgs Tv magaalada Baydhabo